maanta ani adinka waxaan wada sheekaysi English la sameyn doonaa Mike. Haddii aad gabar tahay waxa ku matalaysa Coco, haddii aad wiil tahayna waxa ku matalaya Asad. Let's start. I'm Blono. Asad ayaa wuxuu dhahayaa, "Hey everyone, qof walba waa idin salaamay. How is it going today, guys? Sidee bal ii warrama maanta maxaa haysaan?" ayuu dhahayaa. Mike wuxuu ugu jawaabayaa, "Hey, it's going good. Waa fiicannahay, just finish some work. Shaqo hadda ka soo baxuu leeyahay. Now haddana ready for some English practice. Waxaan diyaar u leeyahay inaan idinla practice gareeyo Ingiriiska." Asad wuxuu dhahayaa, "I've been practicing my English ayaan practice gareynaya, but laakiin I still need to learn. Waxaan weli u baahanahay inaan barto, inaan intaas in ka badan inaan barto. I hope I don't make too many mistakes today." Waxaan filayaa in maanta aan sameyn doonin qaladaad aad u badan. Coco waxay leedahay, "Oh, don't worry. Asad waa cool welinay leedahay. I make plenty of mistakes. Qaladaad badan aniga laftiga aan sameeyaa leedahay every day maalin kaste. I try to speak waan isku dayaa inaan ku hadlo. It makes me feel waxaan dareemaa sida like I'm a beginner inaan bahay qof iska bilow ah." Asad wuxuu dhahayaa, "That is okay. Waa iska caadi. Mistakes qaladaadka are part of learning. Waa qayb ka mid ah barashada. Are you here today? Maanta waxaa halkaa Mike u joogtaa to help us practice inaad naga caawiso practice gareynta. Right? So saas maahan." Mike wuxuu dhahayaa, "Absolutely. Aad iyo aad. I'll be here. Halkan waxaan u joogaa to make sure si aan idinkaga hubiyo you don't sound too much like a robot si in ugu dhawaaqin sida robotka oo kale Ingiriiska. When you speak English markaad Ingiriiska ku hadlaysaan." Asad wuxuu dhahayaa, "Oh no. Allah, please don't turn me into a robot. Robot iga dhigin u leeyahay. I just want to speak fluently like you guys." Waxaan rabaa inaan English ugu hadlo si fluent oo fiican sidiina oo kale. Mike wuxuu dhahayaa, "Well, hagaag, let's get started. I'm Blono. So what is the first thing? Waa maxay waxa ugu horeeya you two labadiina do aad sameysaan when you want to practice your English markii aad rabtaan inaad practice gareysaan Englishkiina?" Coco waxay leedahay, "For me, ani ahaantayda I watch a lot of English movies. Waxaan daawadaa filimada Englishka and listen to music. Waxaan dhageystaa music ayaan dhageystaa. It is fun waa wax xiiso leh and I try to understand how native speakers talk." Waxaan isku dayaa inaan fahmo how native si dadku u dhashay speakers talk, dadku u dhashay luqadda ay ugu hadlaan. Asad wuxuu dhahayaa, "Yes, me too. Aniga laftigay xitaa saas waaye, but sometimes laakiin mararka qaar I can't understand everything. Wax kasta ma fahmi karo. Because sababta they speak too fast, waxay u hadlaan si degdeg ay u hadlaan." Mike wuxuu leeyahay, "Yeah, that is the challenge. Taasi waa caqabada. We Americans American ahaan anaga have this habit of speaking. Waxaan leenahay caado ayaan u leenahay speaking fast inaan u hadalno si degdeg ah, especially gaar ahaan when we are excited markii aan faraxsanahay." Mike ayaa wuxuu dhahayaa, "Practice makes perfect." Practice gareynta waxaad ku noqonaysaa perfect aad ku noqonaysaa oo aad ku fiicnaanaysaa luqadda. How do you practice your English skills? Sideed u practice gareynaysaan xirfadihiina luqadda Englishka? Asad wuxuu leeyahay, "Well, hagaag, to be honest, dan daacadda ka hadlo, I like to watch YouTube videos. Waxaan jeclahay inaan daawado muuqaalada YouTube-ka. I also sidoo kale read books. Waxaan akhriyaa buugaagta Englishka. But laakiin when I get tired, laakiin markaan daalo, I just relax waan nastaa and watch. Waxaan daawadaa something wax funny, yani shactiro leh oo xiiso leh. It helps me. Waxay iga caawinayaan understand and fahmo how people talk casually si dadka ay u hadlaan caadiyan casually sida caadiga. Oh, that is a good idea. Waa fikrad fiican. I also sidoo kale try speaking with my friends inaan kula hadlo saaxiibaday, but laakiin sometimes marka qaar they make fun of my accent. Waxay ku shactiraystaan accentiga iyo lahjadeeda." Mike wuxuu leeyahay, "Sometimes I make mistakes too." Aniga laftigay marka qaar qaladaad ayaan sameeyaa. We all do. Dhammaanteen qaladaad ayaanu sameynaa. It's not about being perfect. Ma ahana luqadda perfect ku noqoto ku fiicnaato. It is about communicating. Luqaddu waa inaad dadka kula xiriirayso and learning from your mistakes. Qaladaadkaagana wax ka baranayso. Mike wuxuu dhahayaa, "So Asad and Coco, what is the hardest part? Waxa idinku adkaa about learning English for you ku saabsan barashada luqadda Englishka maxay ahaayeen?" Asad wuxuu dhahayaa, "For me, ani ahaantay it is definitely pronunciation. Waxa shakilaan igu adkaa pronunciationka ku dhawaaqista. Some words ereyada qaar you just don't sound like how they are written. Yani ma ahan sida ay u qoran yihiin ereyada qaar ma ahan. Though waxaa ka mid ereyada though iyo through ayaa ka mid ah. Those two words confuse me every time. Labadaas erey mar kasta waan ku wareeraa. How do you say them? Sidee loo dhahaa without your tongue getting tangled? Adigoonan carabkaaga yani qalluucinaynin ama aanan carabka ku xanuunaynin. Mike wuxuu dhahaa, "Yes, the English tongue twisters carab jalqinada Englishka. Why don't worry, ha ka walwalina. I still get confused and laftigay waan ku wareeraa with some words ereyada qaar. English is tricky. Englishku waa tricky oo macnooyin aan la fahmi karin ayuu leeyahay, but it is also fun. Soo kalena waa wax xiiso leh." Mike ayaa saas dhahaya. Mike wuxuu dhahaa, "English rules can be tricky. English rules can be tricky. Waxay noqon karaan kuwa aan la fahmi karin. For example, tusaalahan silent letters. Silentiga like sida the K, yani K-da ku jirto knife. Knife laguma dhawaaqayo K-da. Don't get pronounced. Ha ku dhawaaqin K-daas ayuu dhahay Mike.